waxaan rabaa inaan maanta ka hadlo arrimaha waayaha kan ka socda gobolka Gado ee dowlad goboleedka Jubbaland sida ummaddu la socoto dowlad goboleedka Jubbaland wuxuu ka kooban yahay 3 gobol saddexda gobol oo ah Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gado. Jubbada Dhexe waa la og yahay oo cadow ma haysta. Gobolka Gado oo dhamaantiis xoraha in muddo ah waxa ka socda waxaan sifa sharciyeysan ku dhisnayn. Arrintaasuna waxay moodaa haddii waxaan sifa ahayn sharciya wax lagu maamulo waxay dhanaan waxaan sifa sharci ahayn. waxaa la bedelay gudoomiyaashii degmooyinka oo dhan waxaana saxiixaya oo bedelaya gudoomiye ku xigeen hore loo bedelay. arrintaasuna ma ahan mid dastuuriya iyo mid sharciga waafaqsan. waxaana moodaa inaan ciduna ka hadlaynin arrintaa iyada ah. saaka inaan wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubbaland magaceeda aniga ku hadlaya aan muujiyo ama bidhaamiyo inay arintaasu ay khalad tahay. gobolka dowladda federaalka oo dhamaantiis waxay ku magacaabi kartaa gobernatore u magacaaban kartaa waana goyn kartaa wasaaradda arrimaha hoos waana hoos geyn kartaa. laakiin iyadoo la isticmaalayo la raacayo sida dastuurka waafaqsan oo sharciga ah. haddii aanay waafaqsanayna anigu waxaan isleeyahay waxa hadda socdaa ma ahan wax sii socon kara waa wax abuuri kara dhibaato iyo maamul xumo iyo iska horimaad. waxaan ugu baaqayaa dadka deegaanka degan inay aayahooda iyagu way garanayaan inay ka tashadaan. waxaan kaloo ugu baaqayaa war nimanka dhalinyarada oo hadda yaacaya oo macallimuhu madaxda u yahay oo bakaalkoo ka ku xigo warnamadow wax hadda sharci darro ah sharciga ka dhiganina. isbedel waa la samayn karaa dadku waxa weeye nidaam buu isku bedelaa laakiin qaabka hadda socdaa waa mid dhibaato horkeeni kara taana lama baahna. waxaan ku talinayaa inaan arrintaas laga fiirsado oo laga fakaro si aadan looga fakaro. waan soo dhawaanay degmooyin baan ka takhalusnay degmooyin baan ka takhalusnay macna ma sameynayso. waxaan leenahay ka dowlad gobol ahaan annagu ilaa iyo hadda waxaanu aqoonsanahay oo sharci ah gudoomiyaashii hore ee horey dowlad goboleedku magacawday. waxa la ala wixii dambe oo ay magacaabeen nimanka dhalinyarada annagu sharci uma aragno mana waafaqsana sharciga mana laga aqbali doono. iyagu meeshay saarayaan iyo qodobka ay cugsadeen iyaga cadeyn doona. gudoomiye ku xigeenka hadda wax magacaabayo degmooyinka magacaabaya macallimuhu xilligii lagu bedelay waa lagu bedelay de meesha haddaad ciidan iyo xoog ku qabsatay anigu waxaa ila habboon inaad magacaabista sharci nidaam ka dhigto. anaa qabsaday anaana magacaabaya waxaan u malaynayaa intay shaqeyn karto waad garan kartaa. ha iska hadlaynin muxuu ahaa qaabkaaga mas-uuliyadeed iyo midkaaga qof ahaaneed iyo ummadda aada hor istaagayso ha iska hadlaynin qaabka aada u dhaqmaysaa qaab fiican ma aha qaab sharci waafaqsanna ma aha. ummaddu iyadaa xor u ah qofka ay dooranayso waana u imaan doontaa xilliyada ka mid ah inay qofkay doonaan doortaan qofkay rabaanna ay diidaan. midaanu marka qoorqabadka ah haddii qooley waxaa la yihi qoorqabad biyo kuma cabto. arrintaas marka waxaan odhan lahaa inuu ka waantoomo macallimuhu dowladda Jubbaland xil uma hayo. haddii federaalku uu xil u hayo haddii gudoomiye ku xigeen buu hadda wax ku saxiixaya adduunka meel gudoomiye ku xigeen gudoomiye degmo ku magacaabayo oo waliba gudoomiye ku xigeen caasimad ka ah gudoomiye degmo oo ku
bedelayo aniga maanta ku horo ma arag sharciga meel kaga taalana ma arag sidaas ayaan maantay arintaas rabnaa inaanu uga hadalno dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka war wixii aan sharci ahayn idinkana idinma wanaagsana dowlad goboleedkana uma wanaagsana soomaaliduna waxay tiraahdaa wixii umusha u roon baa ilmaha u roon war waxaan codsanaynaa arinta tano meel lama saaree mas-uuliyaddii dowladnimo yaa ku lumaysa hadday heer state tahay iyo hadday heer federaal tahay inta goor tahay anigu waxaan oran lahaa oo ka codsanayaa wasaaraddu inay arrimahaas wax ka qabato madaxda dowladda sare ee federaalkana sidoo kale waxaan ka codsanayaa dadku siyaasadda waa isku ikhtilaafi karaa ra'yigana waa ku kala duwanaan karaa laakiin ha la isku tunto anigu waxaan isleeyahay qolay xal u tahay male kuwa deegaanka gobolka deganna xalo maaha dowladda federaalkana xalo maaha dowlad goboleedkana xalo maaha waxaan rajaynayaa in caqligu shaqeeyo arrintaana dib looga fiirsado dibna loogu noqdo guddoomiyaasha horey ay u magacowday dowlad goboleedka waxaan leenahay idinka ayaa sharci ah shaqadiina sii wata de haddii xoog iyo ciidan layna ku qabsadana haddii sharcigu mar walba idinku idin helin doonaa sidaas ayaan iyagana ku boorinaynaa waxaan kusoo koobayaa dadkaasu dad walaala ah oo isku deegaana oo isku gobol ah weeye dhulku ma guurayo laakiin dadka waa la badbedelayaa shalay kuwa hadda lagu magacaabayo shalay way shaqeynayeen qaarkood waa laga bedelay kuwo kalaa yimid berri boqolaa imaanaysaa laakiin waxaan leeyahay waxa weeye wax wada ogola oo laisku waafaqsan yahay dastuurkuna waa kuwa yani waafaqsan sharciga maamulada u degsanna waafaqsan waxa wax lagu qabanaya waxa ha noqday baan leeyahay wax oo jajuuba yaysan noqonin intaasaan kusoo koobayaa aad iyo aad waxaan u rajaynayaa kuwa wax maamulaya iyo madaxda naga sareysa intuba inay arintaas ay tixgelin siin doonaan baan rajaynayaa dadweynahana waxaan rajaynayaa inay waxi khaldan waxaa la Soomaalidu tiraahdaa carab dalab leh iyo lugo dalab leh la kala garan og wixii khaldan dadweynuhu inuu ka jawaabi doonaan rajaynayaa aad iyo aad u bilaa tawfiiq